السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديوgan labaad kusoo dhawaada walaashin rawda cilmi video kale idin soo duubaysa oo kamid ah tababarkeenii videogan waxaynu kaga hadli doonaa insha Allah qaabka uu qofku website-kiisa u eeganayo halka uu ka eeganayo marka account-kii baan gelaya oo ahaa account-kii testing-ka ahaa ama test account-ka ahaa login baan odhanayaa login markaan idhaahdo deedna waxaan tagayaa my back office affiliate marka aan back office-kayga aado page-ka cusbaa buu iisoo furayaa marka uu page-ka cusbaa iisoo furo deedna halkan ayuu igu soo celinayaa oo home-kii dashboard-kii training-kii taababkii aynu hore uga soo hadalnay website-ka ayaynu ka hadlaynaa iyo waxa hoostaga website-ka waxyaalo badan baa hoostaga marka muhiimadda waxa weyn qofku inuu barto mid kasta muxuu yahay kan ugu horeeya waxa la dhahaa replicated website kan ku xiga waxa la dhahaa capture page product funnel shareable cards intaas oo dhan ayuu ka kooban yahay halkan aynu ka bilaabaynaa replicated website-ka waxa weeyaan qofka cinwaanka uu kambanigu siiyey ee uu marka uu dadka la wadaagayo uu u diraayo meesha uu account-kaaga qof kasta oo soo gala wax ka iibsanaya uu ka iibsanaya waa kan account-kan waxaa la dhahaa magaciisa CBD Health waa account-kii tijaabada ahaa ayaa weeyaan ee aan sameeyey si aynu ugu tababarano cinwaanka qofku waa halkan meesha uu ka helayo qof kasta username-ka marka uu sameysanayay username-kiisa wixii uu ahaa ayaa xagga dambe waxa laga raaciyaa kambaniga magaciisa qof kasta website-kiisa xagga hore inta hore iskaga mid baynu nahay intaasoo dhan iskaga mid baynu nahay www.mydailychoice.com intaa dambe ayaynu ku kala duwanay qof kasta wixii uu ka dhigtay marka uu sameysanayay dukaankiisa ayuu ahaanayaa markaasi waana website-kaaga unique ama gaarka kuu ah ee aad dadka la wadaagayso marka aad dadka u diraysid maxaad samaynaysaa markaad sheer garaynayso halkaa waxa ku qoran website link halka ayunbaad ku dhufsanaysaa waa ka halkaa jirtaba inoo soo dhigay inugu leh successfully waad koobiyeysatay haddaad aapka kaga jirto iyo haddaad website-ka kaga jirto waa isla halkaa marka aad ku dhufsato markiiba wuu kuu koobiyeynayaa koobi marka aad tidhahda markaa qofka aad u dirayso ama social media ugu dir ama email ugu dir paste unbaad odhanaysaa wixii aad soo koobiyeysay waad u diraysaa meeshay doontaba ha noqotee waxaa kaloo hoosta yaala oo inaga sii maaragtay website-keena kasii hooseeya waxa loo yaqaano recommended URLs maxay yihiin waxa weeyaan websaytadii oo inoo soo ururiyey kamanigan maadaama alaabo tiro badan iibiyo wuxuu ugu talagalay in website kasta gaar laga dhigo alaabadii way tiro badan tahay marka baraanadii waa la kala saaray intani waxa weeyaan 10 baraan ee kamanigeenu iibiyo websaytadoodii marka mid kasta alaabtiisii intoo gaar loo ururiyey ayaa hal meel la isugu geeya haddii aad haysato macmiil doonaya isbareyada oo keliya inuu kaa iibsado dhowr isbarey oo kala duwan maxaad samaynaysaa marka website-kaagan dhamayska tiran uma diraysid because qofkii markuu website-kan galo waxaa laga yaabaa inuu ku dawaqo waxa aad samaynaysaa daily isbareyada oo keliya aad u diraysaa daily isbareyadii waa kuwan website-kii daily isbareyada ahaa oo kaagii ahaana halkan ayuu ku jiraa maxaad samaynaysaa marka geeska yar ee buluuga ah halkaa gacanta ay taalo ayaad ku dhufanaysaa koobi ayaad odhanaysaa muxuu ku yidhi day waa laguu koobiyeeyey buu ku yidhi ma aragtaa maadaama kuu koobiyeeyey geeskaa yari aad ku dhufsatay qofkii kanaad u diraysaa waxaa leedahay isbareyadayada website-koodu waa kuwaas gal oo iibso haddii aynu isla eegna haddaba markaan soo koobiyey daily isbareyada website-koodii marka aan halkaa keeno waxa u dambeeya halkaas username-kayga baa u dambeeya CBD Health waa username-kii account-kii tijaabada ahaaba u dambeeya qof kasta magaciisa ayaa markaa halkaas u dambeynaya ama username-kiisa website-ka uu soo share gareeyay haddii aan enter dhaho oo aan maaragtay page-kii ku dhufsado maxaa ii soo baxaya halkii ayaan tagaya ama uu igeynaya waxa keliyaatoo uu igeynaya page-kii isbareyada lagu iibinaya daily isbareyada buu igeynaya halkan daily isbareygun baa kasoo baxaya wax yar baad sugaysaa marka hore kafeeya waxbaa saarnaa meesha uu ka qaaday wax yar markaan sugo isbareyadii keliya taa isoo baxaya ama iyagiyo bundle oo iswata oo 20 xaba ama 8 xaba ama iyagiyo hal aba isoo baxaya qofkii markaa ma ku dawaqayo website-kaagii maanta dhan ma dhex wareegayo waxa keliya u baahan isbareyada inuu dhowr xaba ka iibsado ama hal xaba ka iibsado xabadii uu doonayay ayuunbuu ka iibsanaya sidaas ayaad samaynaysaa website kasta hadduu qofku doonayo body melt ama kamiisaanka lagu dhimo koobi ayaad odhanaysaa website-kiisa sida ayaad kula wadaagaysaa marka qaybtan website-ku ama replicated website-ka hoos tagtaa aad ayay muhiim u tahay taasi waa la inoo fududeeyey si aan qofku maanta kadib website-ka u dhex wareegin maxaa kaleynu leenahay wax loo yaqaano ayadana custom referral URL baynu leenahay kaba soo qaad qofkii isbareyada ma wada rabo hal xabuu raba halkii xaban waxa laga yaabaa in isaga ekaadeen hataa haddaan page-ka ku laabano oo in isbareyada isla eegno qaar isku kalar ah ayaa jira waxaa laga yaabaa qofku boost ayuu rabaa baashan loo yaqaano isbareyada boost loo yaqaano boost mid kalaa la kalar ah waxaa laga yaabaa inuu kala garan waayo boosti waa tan waxa u eg esel iyo beauty baa u eg
labadani maadaamay la kala yihiin qofkii waxaa dhici karta inuu ku khaldamo ama uu ku dhahdo ma garanayo magacii ama wax saas dadku isku wada mid ma aha maxaad samaynaysaa markaa boost oo keliya tad adoo ku dhufanaysaa markaad boost ku dhufato websitekeedii gaarka ahayd boost ee laga gadanayay ayuu ku geynayaa waad soo koobiyeynaysaa koobi intood dhahdo ayaad halkii back officekaaga ku noqonaysaa waxaad tegaysaa meeshan maran ee loogu talagalay referral url-ka waxaad odhanaysaa copy baste wixii aad soo koobiyesay halkaa maxaa kaaga muuqda boost spray ayuu inoo soo qaaday websitekii u gaarka ahaa boost spraygu inoo soo qaaday halkaa markaad ku hubsato qoraalkii aad soo koobiyesay oo aad halkee ka keentay halkan ka keentay kan waad iska xidi kartaa waad xidhaysaa saasad u xidhaysaa deetana waxaad odhanaysaa copy link halkaa maxaa kaaga soo baxaya successfully inuu copy kuu siiyey linkigan oo ah hal spray linkigeeda waa hal sprayyada dhan maaha maxaad samaynaysaa markaa qofkii baad u diraysaa waad la wadaagaysaa waxaad leedahay boost spraydi wataa baste marka aan dhaho halkaa maxaa kasoo baxaya mar walba usernamekii baa u dambeeya halkan horena maxay tahay boost spray keliyata ayay ku saabsan tahay inter haddii aan siiyo oon inter dhaho maxaa iisoo baxaya amaba qofkii customerkii maxaa usoo baxaya spraydii boostka oo keliyata oo aan spraye kalena la soconin ayadoo quraa soo baxaysa wuxuuna ka gadanaya websitekaagii qofku wuxuu samaynaya un add to cart intuu dhaho unbuu checkout samaynaya waa dariiqada ugu fudud ee qof kasta lagula wadaagi karo qaabka maaragtay markuu alaab hal shay rabo oo kale halkii shay baa loo diray waxyaalaha technology communigan ku fiican waxaasa kamid ah marka meeshaas waa iska marantay mar walba wixii aad doontaad gelinaysaa deedna copy link ayaad odhanaysaa marka aynu kusoo celino websitekaagii dhamayska tirnaa waa kan oo alaabta dhex taalay websaytadii oo la inoo soo kookoobay oo mid kasta baraankii hoos tegayana waa kuwan copy unbaad dhahaysaa deetna baraanka alaabtii hoos taalay oo dhan ayaa kuu muuqanaysa haddii aad hal shay oo kamida baraankaasi amaba categoriga aad doonaysana websitekaad soo koobiyeysanaysaa marka hore baraankaasaad furaysaa copy aad tirday deedna markaad furto kadib baad hadda body melt oo kalaad furaysaa copy baad odhanaysaa wixii aad uga baahnayd shaygii baad kasoo qaadanaysaa waa inaad marka hore shayga kusii dhex dhufato si uu kuu geeyo halkaa shay amaba halkaa wax meesha laga helo marka body melti marka aad ku dhufato tusaale labaad baan bixinaynaye micro oo keliyaataad soo qaadanaysaa halkaa geereeda marnayd baad la tegaysaa markaad saa u dhexgelis saa tiraahdo tanubaad koobiyeysanaysaa microgii baad iska xidhaysaa deetana mid cusub baad ku furaysaa waxa keliyaatu kuu keenayaa uun ayadii oo qura marka waa intaas inuu qofku maaragtay kala garto uu kala saari karo farqiga u dhexeeya websaydadan tirada badan ee baraanada ah iyo websitekiisa dhamayska tiran ee alaabtan in ku dhex jirto iyo websiteka halka shay loogu talagalay waa easy waxaa doontaad gelinaysaa waa wax la inoogu talagalay inay dadka maaragtay inoogu fududayno qaabka iibsigooda marka insha allah waxaan rajeynayaa qaybtan websiteka aad bay u tiro badan tahay intanaan kusoo koobayaa websaytada recommendedka ah iyo websitekaaga gaarka ah iyo ka qofka uu maaragtay iska ogashanayo sida iyo biidnillahi alkariim inaad ka faa'iidaya maan rajeynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu